بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel joogtaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku ma yeelo cidii dhibka Allah ka qaado cidii dan Allah oo fiyo inta baahan Allah deeqoynta bugta Allah bogsiyo intii dhimatay Allah u naxariisto waalidiinteena Allah u naxariisto annagana Allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa saddex qodob. maanta waxaan idin sheegayaa arrimo xasaasi ah iyo xogo aad iyo aad heer sare u ah. dad badan baa kolley dhibsan doona ma kala jeceli ha karaama sheegina habaar laygu kari waaye runtaan sheegaa rabbi baan ugu dhowaadaa wixii iga khaldamaa waa wax iga khaldamay bini aadannimo kullu bini aadam khata laakiin cidna uguma turo inaan runta sheego cidnana uguma darnaado. maanta waxaan ka hadlayaa saddex qodob. qodobka koowaad, dani iyo ciro xaggee iska heleen, maxay ku saaxiibeen, maxaa ka dambeeya isu boodkan kelmadaan ka oranaya. Puntland iyo Somaliland saaxiibna maaha, heshiisna maaha, isjacayl iyo isu bood iyaga ka dhexeeyaana ma jiro. laakiin saan idiin sheegay madaxda Soomaaliyeed waa diran yihiin, iraadana male. imaaraadku taariikh baan idin siinayaa, waad ilowdaan, degdeg baa wax u ilowdaan. taariikh baan idin siinayaa, waxay isku dayeen muqdisho inay qasaan dowladdan dowladdii ka horreysay. lacag bay soo geliyeen, ay rabeen inay ku difaacaan impeachmentigii Jawaari, Allah u naxariistay. lacagtii waa la qabtay. markay halkaa ku fashilmeen, lacago kale ay dusiyeen. gurigii Cabdiraxmaan Cabshakuur baa la weeraray. waxaa weeraray Khayre iyo Fahad Yaasiin. dhibaato halkaa ka dhacday ay kicisay buuq iyo ma garanaysaa dareen. iyadoo taas taagan tahay bay is yiraahdeen ka faa'iideysta oo iyaguna waxay weerareen gurigii Jenaraal Cabdi Qiibdi. waa hal reer, waxay rabeen reerka iyo dowladda in la istuso oo dowladda iyo habargida ay diriraan. gorod oo taliyihii ciidamada ahaa baa arrintaa gacanta ku dhigay, damiyey oo la dagaalamay, arrintaa damiyey. kadibna wuxuu damcay inuu ciqaabo askartii guriga weerartay generaalka senator Cabdi Qiibdi. taliyihii ciidamadaas haystay oo 1500 ahaa oo imaaraati ahaa oo korneyl ahaa baa wuxuu yiri, maxaa askartan ka rabtaa anaa marka baxshay, maxaa iga qaadi kartaa aniga? waxaa dhalatay in dalkaba laga saaro, ciidankoodiina la kala furfuro, lagana mamnuuco inay ciidan dambe ku yeeshaan waddanka Soomaaliya. waa guureen iyagoo caraysan oo jabay oo isku day kasto ay keeneen ku jabay. xoogaa lacago ay gudbiyeen unbaa u hirgashay, laakiin wax kale oo dhan ku jabay, xanaaqsan way dhaarteen. waxay dhaheen Soomaaliya dib baan u celinaynaa, taariikhdeeda waxaan ku celinaynaa Stone Age-kii. waxay u boodeen Ethiopia, lacag bay saa ugu daldaleen ilaa ay xataa uga hiiliyeen dagaalkii uu la galay Tigreega oo ay hubkii ugu khatarsanaa iyo daroomo saa ugu soo afuufeen, lacagtii adduunkana siiyeen. waxay kala shaqeeyeen Abiy Ahmed hadalladan uu ku hadlayo hadda uu ku wajahan yahay musawac baan weeraraya Eritrea. musawac waa meeshii laga eriyey imaaraadka, iyo saylac baan qabsanayaa, labadaba iyaga leh. waxaan kaloo idiin sheegay Soomaalida siyaasiyiinteeda oo dhan juuq cid dhihi kartaa inaysan jirin. labadaa nin waxaa loo heshiisiiyey, ujeeddada la leeyahay waxay ahayd khaatuma ilaa in kacdoon shacab bay ahayd. ilaahay baa soo saaray, Soomaalina ilaahay baa ku badbaadinayay, dadkaas ilaahay baa mideeyey. ma ujeedaa? raganimadooda iyo kartidoodayna ku xoroobeen, iyadoo weliba dowladdii Soomaaliya ay la dirirayso. dowladda Soomaaliya iraada ay leedahay kula diriri mayn, mana aysan lahayn heshiiye, ma ay lahayn. xataa international community intuu cambaareeyey dagaalkii Muuse halkaa ka waday oo la cambaareeyey oo lagu sheegay xasuuq, bay dowladda Soomaaliya la dagaalantay arrintaas oo waxay ku dishay cambaarayntii. waxaa lagu dilay igad oo ah meesha ugu hooseysa. warar badan baan ka boodaya. dowladdan baa dhalatay, tii hore way la dagaalameen oo la dagaalameen, lacag bay saa ugu afuufeen. murashaxiintii tartamayey in badan oo ka mid ay lacag saa ugu qarqiyeen. maxaa ka dhalatay? farmaajo dibadday u tuureen. taa waa ku guulaysteen. waxay kaloo ku guulaysteen Puntland iyo Somaliland labadaba inay baysas ka dhistaan kadib markii xasan sheekh ay ka saxiixdeen inay dalka keensan karaan ciidamo
heshiiskii la mariyey baarlamaanka aan la marin la mariyey wasiirada ee imaaraadka loo saxiixo hadda kahor aan ka sheekaynay aniga faarax macalin iyo dad badan anagoo cabdiwahaab cabdisamadiyo professorka oo dad badani ka hadleen waxaa uu saxiixay xasan sheekh sovereignty waddanka waa sababtoosan juuq uga dhihi karin nin baahani gob maaha ma ujeeda dani iyo ciro maxaa laga rabaa hadda waxaa la rabaa oo u muuqata imaaraadka doorashada soo socota in dani la dhiso dad badan oo khayra ka mid yahay bay lacag saa usoo siin doonaan waa rag badan keligii maaha lacagta ay siinayaan waxaa loogu talagalay kulligood inay hadhow baagareeyaan dani oo dani saa lagu soo saaray dani iyo axmed madoobe waxaa lagu heshiisiinayaa nairobi bay ku kulmayaan kadib labadooda iyo ciro iyo waxoo dhan waxaa la aadayaa imaaraad ajenda imaaraad baa lasoo qaadaya oo doorashada lagu geli doonaa doorashadaasna waxaa la rabaa kulligood inay dani dhisaan danina uu weji u noqdo maxaa laga rabaa dani kow marka ugu horeysaba inuu ku dhawaaqo somalilan inay tahay waddan madax bannaan ama confederationka a ka maqasheen juxa inuu confederation siiyo confederation maxaa la yidhahdaa waa European Unionka oo kale ingiriis faransiiska iyo jarmalku waa laba waddan oo kala madax bannaan kala dastuura kala madaxweynaha laakiin waxay wadaagaan heshiiska confederationka oo European Union ay ku wada yihiin wada jirka Yurub kaasoo kale inuu ina ka dhexeeyo oo wadamo kala madax bannaan noqono qasadkii iyo dhaartii ay martay bay ku socotaa waana dawlad mushkilo ah oo musiibo ku ah dalalka ay hadda qasayso gacanta kula jirtana Soomaali baa ku ka inuu wasiir dhan oo wasiirka arrimaha gudaha Puntland isla soo taago confederation haw malaynina inay lacag yar ku baxday kharash aad u badan baa galay waxyaabaha dadka waa la maqashiinaya ilaa ay la qabsadaan waxaan layna ku samaynayo oo dhan markii hore waa ka boodi jirnay laakiin hadda waa la qabsanay soo ma arkaysid kelmadda markii intaasaan ka oranaya imaaraad baa wata ujeedda ay leeyihiin iyagu iyo heshiis ay leeyihiin iraade ay leeyihiin midna maaha dabaaldega garow lagaga dabaaldegaya calankii gooni goosatada wax kale lagama leh dan iraade ay leeyihiin male ma jirto khaatuma uun caqabad ku noqotay iyo gobolkaas hadda soo kordhay oo ay colaad aad u badan ku hayaan oo ay diidan yihiin waxa kale oo la rabaa labadoodu inay ka heshiiyaan inay tirtiraan oo la dagaalamaan khaatuma inay cagaha dhulka dhigto intaasaan oranaya billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh